waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaantiin magacaygu waa Ridwaan channelka muuqaalka daawanaysan waa caqligal haddaad nagala socotid dhankaaga tiktokna waxaad ka daawanaysaa akoonka ay ku qorantay Ridwaan Saasaan muuqaal ka horreeyay qaybta kriptada gaar ahaan move to earn ababka la isku dhaamo coinska la isku dhawo waxaan kaga hadlay concept guud laakiin muuqaalkan ayaan rabaa inaan sii dhex galo ka ugu siitay iminka coinska in Esteban la isku dhaho move to earn waxaa la dhahaa Esteban coin waa coinkan wuxuuna GMT iyo GST baa ku jira wuxuu isticmaalaa blockchain ama networkyo fara badan sida Solana, Ethereum blockchain buu isticmaalaa Binance blockchain buu isticmaalaa markaan hore u galno Esteban baa la dhahaa app la soo degaysaa aniga wuu login gareysay adiga markuu ku horeysa activation code iyo waxyaalaha isku weydiinaya oo dabcan aad iyo aad u dhib badan oo aan qofku markuu u loo gareysan yahay iyo markuu ay kala duwan tahay marka qofku activation code ka helayo marka imkaan activation code muu diin emailkaygu aan ka geliyay automatic code buu emailkayga ku dirayaa login baan dhahayaa markaan code soo diray halka geliyo sad muuqaalka arsan code soo diray xagga sare 675 way code-ku 240 asku dayin code-kan isticmaashadii emailkan already mar walba isbedelaya Google Authenticator code bi weydiiyay ugu siyaadkay Google Authenticator code kan galaya Google Authenticator code bi jira Google Authenticator code waxa la app for security reason loo sameeyay oo security lagu siyaadkayo already halkan uu dhex keenay waa page programmer bulshada hore ee Esteban coin-ka halkii kabaha la giibsay marka halkan inta imaanaysa waxa ka horeysa muuqaalka inaad ogaato activation code lagaaga baahay marka emailkaaga isku diiwaan gelisid kadib qaybta activation code lagu gudbin activation code waxa la soo dhigaa Discord-ka iyo Telegram-ka ay gaar u leedahay Esteban coin-kani 60 minute baa waxa la soo dhigaa in code activation code dhacaya halkaas ka doonaysa insha Allah activation code-ka halkan daan dhaho igu soo dar waxaan search gareynayaa m.esteban.com waa marketplace of esteban.com meesha kabaha laga iibsado meesha NFT-ga laga iibsado ay ka dhigan tahay kabihi la iibsanayo kuwan markaas sad app-kan u isticmaashida ama coin-kan move to earn waxaad u baahantay kab caadi waxan maaha lagu keenayo waa NFT weeye waa coin waa kab digital ka coin-ka suuq ugu shaqeeyo lacag u heshid kab la'aan ma isticmaali kartid imka kab la'aan dan macnaheedu starno oo halka daan tagano start wadaha game marka kabtii xiibsatay kabta xagan ku soo fariisanaysa ay ku qoran tahay plus-ka iyo kabtu start marka trade halka ku soo qorayo quanti and tokens without sneaker kab tokens ma helaysaa dad kab haysan will you like to continue marka confirm daan dhaho accept dhaho ayna location kayga oo galaad doonaya okay wuxuu oo galaaday iyo bilaabaya halka ku xisaabinaya kilometerkayga halka inta saaca socday halka talaabooyin ku xisaabinaya halkan wuxuu ka siinaya plus-kan waa GST-ga ama coin-ka Esteban-ka lacagta hadhow bedelanaysid lacagta kuwa ay ku siinaya marka halkan kilometer ku xisaabinaya halka inta kilometer lagu soo dhigaya haddii marka ugu horreysay noo sheegay anu kab sneaker ma iibsan dad sneaker iibso wax ka dhigantay wax lacag lagu siinayn ka dhigantay laakiin hadda sneaker-ka iibsatid already halkan talaabo walba aad lugeysid ama inta kilometerta lagu xisaabiyo halkan iyagoo lacaga ama coin-ka Esteban lagu soo dhigay kadib exchange kala tagaysaa Esteban-ka wad bedelanaysaa qaybka hadaan eegna sida kabaha loo iibsado bariga hore waxay la sameyn jiray halkan plus markuu dhufay toos buu ku geeyay marketplace-ka laakiin markuu way bedelaan dad ku weerartay halka search URL-ka ku qor m.esteban.com oo ah marketplace loo soo gaabiyay esteban.com meesha lagu iibiyo sneaker baa la dhahaa sneaker bay isticmaalayo qaybka kabtan oo kala oo lowest price family kay door aniga saad aragtaan isku jirta refresh kariya marka ku noqdo si aan ku tuso halkan lowest price baa ga dooran highest price baa ku xiga la test kabi ugu dambeeyay la sameeyo halkan filter baa ka gelinaysaa sneaker baa dooranaysaa galaaska rabtid walker mayna choker walker waa lugeyntii saad garanaysaa choker waxa weeye rucleynta in rucleysid runner orodka tenerer ka rabto dooranaysaa runner kar ama walker kala qof inuu iska lugeeyo mashaqada dhexdeeda inta wax barasho ku soo sii lugeeyo kabta ilaa test price baa sida halkan ka dooran aragtid kabta ugu qiimaha jaban 0.855 BNB way Binance coin halkii Binance maanta wuxuu marayaa 320 iyo dheerad maraya marka waxaan $50 gaarin bay noqonaysaa insha Allah kaasad bay wad ku dhufanaysaa levelkeedu waa kan showmintigeedii durability-geedii cost-geedii confirm baa dhaasaa 0.8 confirm hadana sii dhaasaa insufficient kan waxay ugu jira lacag iguma jirto yani imka laakiin saas u iibsanaysaa
waxaad walletkaaga create garanaysaa, walletkaaga lacagta kusoo shubaysaa, halkan aad ka iibsanaysaa. Ka coinska qiimahooda haddii eegno imika highest price ugu qiimaha badan haddii eegno saad halkaa aragtaan kabtan waa Walker weeye, kabaa lagu talagalay in lagu lugeeyo 10,000 oo BNB baa la siinaya halkeedii mid. 10,000 oo BNB waxay u dhigmataa imika 10,000 oo BNB imika haddaan soo xisaabino, haddaan tagno coin market capka haddaan tagno oo coinka BNB halku qorno, coinka BNB saad aragtaan $318 buu dhigmaa halkiisii BNB. Marka qaybta waxaan tagaynaa converterka, qaybta converter markaan tagno weli commentigan ku jira descriptionkii, qaybtaan sax oo kan waxaan gelinaynaa 10,000 halkaas sare waa BNB oo ku qoraysa imika halkii BNB wuxuu dhigmaa $319. iminka mar dhow soo gelinay $10 uu isbedelay. labadii BNB wuxuu dhigmaa $630. 10,000 oo BNB bayna eegana 10,000 4 zero raacaysa dabcan waa 3,196,944 ayaa kabtaa la siinaya iminka aad arkaysid oo level 5 ka oo show mintigeeda, efficiency, comfortiga, waxaa halkaasaad ka eegaysaa base-ka. waxyaalo badan baa laga qiimeeyaa. casharada dambe rabaa insha Allah si fiican ku sharaxo muuqaalka wada qaadayo, hawl dheer bay noqonaysaa oo efficiency iyo luck oo kala ama resilience and comfort waxay ku xidhan yihiin inta coins aad helaysid. halka hadda kaga tagno kabaha qaaliga aan aragnay in lowest price sida kala wada aragtaan lowest price kana in kabii 3 milyan siinayay kab kala yadna Walker oo 8 ilaa 20 kilomitir lagu lugeyn karo oo tan waa runner waa orod sida tan ka aragtaan 8 ilaa 20 kilomitir baa lagu ordi karaa. waxay qaadanaysaa yadna 0.8 ayaa BNB 0.8 BNB anaga intay dollar uga dhigmato 0.8 BNB waa $50 already. waxbaa raaca laakiin 49 oo kale hadii raacino waa liska $60 $99.1 waa $60 bay noqonaysaa, laakiin way isbedeli kartaa coinka qiimihiisa hoos buu dhici karaa korna wuu kici karaa. sidaas weeye coinsku kun lacagadooda aragtaa. haddii halkan dib u yar noqono waan eegno coin kabihii u dambeeyay la soo geliyay ama sneakerkii u dambeeyay la soo geliyay ama NFT kale waxaad horta isticmaal kan 2.4 BNB baa la isticmaalayaa waa lacag $900 ku dhow, kan 0.8 baa la isticmaalayaa, kan 1 ilaa 6 kilomitir baa saac ku lugeyn kartaa. kan waa captain trainer kala weeye 0.4 ba kan la siinaya trainer, tan waa Walker. kabahan waa kabihii ugu dambeeyay la soo geliyo. ka mawduucaas in yar oo concept guud aan rabay inaan la wadaago. aad baa wada mahadsantiin dhammaantiin. muuqaalada badan oo dambana waan ka duubaya insha Allah oo aad ugu sharaxayo gaar u galayo waliba sida walletka loo sameysto qaybta walletka. walletkaagan halkan aad tageysid bin ku xidhanaysid markaad lacagta hadhow GST ga halkan kugu lacagta lagu siinay halkan ay kugu soo dhacaysaa GST ama GMT labada mid bay noqonaysaa. kadib waa la baxaysaa transfer baa dhacaysaa to external wallet waa address halkan gelinaysaa, halkan lacagtaad gelinaysaa 0 aan igu jirtaa, kadib confirm baa dhahaysaa. walletkan dabcan la sameeyo u baahan yahay in wuxuu u baahan yahay lagu xiro blockchain. imkaani Binance blockchain bay ugu xiran. marka aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin tan muuqaalka kale ku kulmano habeen waana wanaagsan habeen baytaadiga laakiin xil kasta ku tahay waana wanaagsan.